الله وبركاته دمان بدد منها دفاع الدنيا ذا كداون دونا برنامج كان إنه هنتي وطلق الله بالله أي تالية دبودة SSUK أي ساق مقابسة هذه ترى بشي وهمر وحا إن شاء الله إن هنتي ومهد نقار دمان با مرتي شرف تا عاوة هلك كان كمرتي لا أما نقول تيمي نقصوا بوعطي وأن جعلها إن أي نقول دون تضاد في ملاء أو دحلقة أو أي أمدا داون دون تا أي وحدة كفائدة دون تو يضع عن جالية دجودة SSUK قربها نشوكتا أما UK شوكتا أي نقص مرتقى ما هذه شارلة دولها نوكله عونا نقص مرتقى نيدت كي أنو هذا بدنا دور كإن أي دور كقريب قل كران وحان دمان تيمبا إذا كم هالعلنية سيدا وناكسن أيضا وسو أجيبتين ضدن أي إذنسو قبل قابسي تالي دجود SSUK وسلامتهين وحان شعرها إن أندود نعاو أي نقطة بشيبا وحوحي صعب بدل لها هذه شغلة صومرة دلكنا يدكنا يومدينا أو أي نقطة ضدها وجو قيمها بدل له أما وحيلا وجو قيمها بدل له يعني فلانقينا بحي أي نوترين سنين إن بدل له هاللاي ومدو كهذا شيء هذا بقى عوا ضد وحي كسب سنتهاي شركة كدعي دوان دلك جيبوتي مقالة جيبوتي أو أي كنتي هاي ضد عادي والحساسية هاي أي سوي مادين جمهورية سوماليلاند هي جمهورية سوماليا iyo dad kale oo aqoon-yahano oo runtii goobjooga ka ahaa ayaan jeclahay inaan doodeenan caawa ku bilaabo qof waliba ama jaaliyada dibadda ku nool ee ka soo jeeda jamhuuriyadda Somaliland mid mas'uul iyo mid aan mas'uul ahaynba sida ay u arkaan shirkaasi sida uu ahaa waxa aan koobi karin magacyada halka ku jira laakiin giddigiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin qof walba iyada oo marka ay su'aashu marayso ama hadalku marayo uu magaciisa iyo bal hadda uu ku dari doono aan ku bilaabo gudoomiye maxamed oo asagu ila jooga aan ku bilaabo dooda caawa iyo goobta iyo madasha maxamed aan idhaahdo waxa aan doonaynaa bal hadda doodii ka dhacday dalka Djibouti sida aad u aragto maxamedow iyo guud ahaanba sida ay dadkeenu u arkayeen bal adigu ra'yiyan aad noo bilowdo doodaadu waan soo dhawaanaysaa walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين عينا الوضع ما صنتهاي اصلا تم لا قليل من التحديد حقه ku bilaabayo adiga iyadu soo gashay soo gaaraysan aad ma صنتهاي waxay la tahay doodaasi arrintan dowlad xasaasiya runtii muhiimna in arrintii ka dhacday shirki ka dhacay Djibouti ay soo qabanqaabisay sidoo ognahay shirka wax soo qabanqaabisay ama urur la yiraahdo heritage oo maxad al-mubarisada oo uu yahay xarunteedu tahay Muqdisho ayaa soo qabanqaabisay dad badan oo farabadan baa soo qayb galay meel ay oo dadka dunida ka kala yimid Somaliland qaar ka yimid walaal aan laga yaabaa in aan aad badnayn ku Somaliland ka yimid haddana laakiin dad ka yimid waxay la tahay doodaasi aanu istaqeybad baan qaybin lahaa oo intaas aan arkay istaqeybad baan qaybin lahaa maxadka soo qaban qaabiyay iyo dalka lagu qabtay oo aan qayb ka dhigayo dooda dhinaca Somaliland waxaa jirtay banalo dhowr ah oo especially laba banal oo Somaliland arrinteeda looga hadlay oo midna maalinimadkii uu ahaa midna uu ahaa habeennimadkii dambe labada banal baa dad reer Somaliland ayaa joogay fadhiyay laga yaabo qaarkood inay Somaliland ahaayeen qadiyada Somaliland ee go'aanistaaga Somaliland ay u hadlayeen qaarkoodna laga yaabo inay midnimada xaggeeda inay iyagu oo doonaya ay u hadlayeen labadaba laakiin dad reer Somaliland asalkooda ay ahaayeen banalka marka qadiyada Somaliland baan markaa ka hadlayaa ee ah yani go'aanistaaga Somaliland midna waa waxa ay qodobkayga kale waxa ay dadka reer Somaliland nahay iyo go'aanistaaga Somaliland doonayno waxa aynu
ku salaynayno goonistaageenna iyo maxaa aynu u doonaynaa inaynu go'no aynu ka go'no soomaaliyadii aynu 60kii midownay waxaan doonaynaa inaynu uga go'no taasna waxay la tahay qodob iyana tahay u baahan in aynu si wacan u eegno iyo maxaan ku dhahdaa mar reer Somaliland gudaheeda oo u baahan iyaga laftoodu in ay maxaan ku dhahaa si fiican isla fahmaan goonistaageenna aynu doonayno inaynu goonisu taagno oo aynu madax bannaani gaara aynu helno oo aynu noqono waynu ka goray Soomaaliya inteedii kalena ilaa markaas 20 sanadood inta laga joogo laakiin ictiraaf caalamiya maynan helino weli ma haysano wadan la ictiraafsan yahay ma nihin marka inaynu balgudaheena inaga lafteena reer Somaliland dib la isugu noqdo oo la isla eego xaaladda dhabta ah maxaan ku dhahdaa Somaliland ay waxay doonta Somaliland ee goonisu taagaan waxay la tahay in saddexda qaybood ayaan ugu qaybin lahaa marka shirkani waxaan u arkayaa shirkani ka dhacay Djibouti inuu Somaliland wax badan u iftiimiyay waxa weeye doodii meesha lala tagay ay in badan qaar ka mid ah dadkeenii reer Somaliland ee qadiyadda Somaliland goonistaaggeeda u doodayay ay ka hadleen in ay ahayd mid jaban oo aan noqonaynin dood inaga magaranaysa inaga soconaysa oo cuntamaysa aan ahayn marka qaarkood adarkiisa iyadoo lagu doodayo imikaba magaranaysa baarlamaanka muqdisho ka jira waxaa lagu yareeyay kuraasna lagu yareeyay oo dad noqonaysa hadii lagu badiyo miyaa ma aqbalaysa marka hadii waa ku badinna ma aqbalaysa baad ijoobta noqonaysa marka ay ma taala waxaa kamid ah iyadoo kale waana la laayay oo dooda ugu weynay meesha magaranaysa hadaan reer Somaliland waana la dilay oo konfurweyna laysay taasa ah sababtan ugu ayno iyada lafteedu waxay dood kamid ah doodihii meesha laga soo jeediyay rag aqoonyahan ka soo jeediyay marka taa lafteedu way jaban tahay oo aftermaysa oo dadka reer Somaliland oo dhan waxa laga yaabaa inaan arrintaasi arrin saameyn ku lahayd oo dhammaantood aan ahayn طبعا dagaalada ku wada lahaayeen saameynta ku wada lahaayeen laakiin marka la dhahdo dagaalkii dawladdiisii aad bare ay la gashay la galay waxa laga yaabaa in cid gaar ah ay dad halkaasi saameynayso marka waxaan leeyahay mid kale waxa imanaysa haddii beriga la dilaayo xukuumadda idin laysay waanu idinka shaafeynaa waa idinka xaal bixinaynaa waa idinka magdhowaan idinka siinaynaa marka ma aqbalaysa inaad joogtaan marka waxaad aragtaa doodaas inay ahayd dood wax badan u iftiisay waxaan u arkaa Somaliland hadday ka faa'iidaysanayso in ay dib isugu noqoto dabadeetana ay doodooda ku saleeyaan waxa ka soconaya oo iyaga u cuntamaya oo ay dhammaantood xukuumad xisbiyo shacab dhammaan ay wax ay magaranaysa meel ka duulaan oo golayaasha ay tagaan oo dhan ay wax ay dad ku magaranaysa ay la yimaadaan ugu soo noqonaya Maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay waxa kulli waa tiiri garabada bidixda iyo midigta maxaad u eegweydaad xagga soo booday labada dhinac bidixda doonayaan in eego dooda iyo isla su'aashi ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo sidee baad warkiisii doodii ka dhacday dalka Djibouti adigu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا وسلامتي مركو على صلاة السلام كانت السلام يا دمانتي انت هدان runtii waxaan u arkay doodii ka dhacday halkaa iyo shirkii halkaa lagu qabtay in Somaliland dhulka la jijiiday oo runtii ay aad u khaldanayd waayo mana qabo in ay wax badan oo Somaliland u iftiimisay ama wax ka soo baxay waxay ahayd sheeko fadhi ku dirada ayay ahayd qarannimadii Somaliland iyo goonistaagii Somaliland iyo madax bannaanida Somaliland ayaa laga dhigay sheeko fadhi ku dirada waayo innakii Soomaaliya waxaan isku haynaa sharci iskuma hayno in aynu ka dhaadhicino dadka amba aynu u sheegno waxaynu u goonay waxaan u goon waxa weeye midkan u baahanay waxa weeye in aynu isla tagno innakii Soomaaliya meelaha lagu kala baxay waa legal case oo maxaa ka mid ah waxa weeye inaynu isla tagno maxay ahayd Geneva oo Switzerland amba isla tagno matqana African Union isla tagno amba igadoo kale aynu ku toodo halkaas oo aynu si sharciya amba aynu adeegsano looyaro kale oo arrimaheena ka tooda oo aynu sameeyno taa haddaan ka sii gudbo dadka aynu doonayno inaan ka dhaadhicino niman aqoon-yahan oo meesha jooga wax ku doodayeen waxaan rabnaa inaanu dadka aqoon-yahanada ee Soomaaliya inaanu ka dhaadhicino qadiyadeeda qofka waxa Soomaalidu tiraa kabatolo haddaad kabakatons kabisa la eega first of all Soomaaliya way noqonaa Soomaaliya
dal jira maaha waa failed state haddaynu eegno institution building ma laha dowladnimo uma dhisna ko ciidamo hagaagsanoo wuxuu qabanaya ma laha waa under the United Nations controlka ku jiro oo jidmada qormaha ka dhaxaysa ayay hoos joogaan oo hadday noqoto in loo dhiso dowladnimada hadday noqoto in mataqaanaa maxay cadaaladda loo dhiso booliska loo dhiso mataqaanaa maxay ahayd stationada loo dhiso wax walba loo dhiso waynu arkaynaa waxa weeye xukuumadda meesha ka talisa waxa weeye waxay ku kooban tahay meeshan yaree maxay ahayd madaxtooyada ma tegi karto meel kale ma fidin karto maamulkeedii ma gaarsiin karto marka waxa weeye ayaa marka hore su-aashu waxa weeye ciddaad wax ka dhaadhicinaysaa waa ayo waxa weeye qodobka labaad ee qaladka meesha ku jira waxa weeye maadaama aynu xukuumad Somaliland aynu leenahay loo idmaday oo sharciya oo la doortay oo aynu golo baarlamaan leenahay oo aynu golo guurti leenahay oo aynu axsaab leenahay waxay ahayd heritage in aanay shakhsiyaad u yeedhan inay soo ogeyso Somaliland u soo diyaar garowdo oo waxay ka hadso qodobka saddexaad waxa meesha loogu talagalay in Soomaaliya laga hadlo shantii Soomaaliland joogtay inta laga booday ayaa waxa loo bedelay Somaliland qodobka afraad aan doonaya inaan iftiimiyo waxa ka mid ah waxa weeye nimankii Soomaaliya ka tirsan ay joogay ee Somaliland ka soo jeeday ayaa banarkii soo fadhiistay taasi ayaan daro iyo ayay ku ahayd Somaliland oo jab weyn bay ku ahayd waayo adigoo ka doodaya qadiyadaadii baa qof kale Somaliland baa ka soo jeeda oo macnihiisu doonaya inuu dadka ka dhaadhiciyo oo waxay ku doodayaan annagu haddaan nahay reer Somaliland oo uu ka soo jeedo waxaan مثلنا رئيس سوماليلاند معناه إنه حوي إنه يدك كذا دعيان إن أي مثلين تاسنا حوي قلب نبات بيحدو وحوي أنك جفوا بكذا على سوماليلاند وقف ما كان لو حضرتك ثاني دبر شوف كوارث دوداسي دلك جمهورية سوماليلاند يو شعب كذا بقى محمد باشا حاج حسن أديات بنكوسو دوينيا وحندونيا إسلسو أشي إنهم كويديو وهاي سلاذو أركتا أديكو أو in badan kusoo dhex jiray media meel walba aqoonta aad u leedahay dalkuna ay aad badan tahay siyaasaddu doodii ka dhacday dalka Djibouti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته doodaas iyada ahi ka dhacday Djibouti nacib badan baa laga yeeli karaa anigu qof ahaan run ahaantii wuxuu hadday dood yihiin وده هدر أخير مركا موضوع يا روبر فريق هذا سهياراي أما وين كوكيدونا يسوي مريا مبدئيا وحيا روما ولا وده هذا كراس ولا يسوي مكرا ولا بدأ الحكومة دول سوماليلاند وصوماليا ولا هذا لا يبلا متهات نبيته 9 سنة لغدي كوني ربيع طبعاً تدبر سنة قياس دورار كلا دول صومالي مدريس نقضي أو عاري وحبك صوبي وإسكعد هاي ثورت عاري ولا هذا النوع عاصي هوا عاري ولا وايو مركب أخرى يسمى وحاجات يسوي من يو وده تشوفه لبردنا أو لبردا دستور كا ويا أي كدوليان ويهي أنت لقوا هذا هذا يمدل وقال كيس وقال لي يا وحنا نتهاوك ومقدسة الدستور كم الجار كه قبل يقرأ كسومالي على جنب أنا ما أقول إن سومالي دولة دي مجت ويكشت هذي وحيابها نبتة حقائق هدينا إنه لكن أو أين العنها يسيدين أو أين قوة وحقوق قيسان أو أين قيمين وين أمبرنا سوماليا وحكتشته دولة كوريسة أو قابكي دولة نيمو وليبا حاولي كسعطة عالم كدولة كريحة أقونسي عالم كحيسته أيها كتشته ولو أني قارين هير كمان سوماليا قفكو وموادنكو وحضورنا هذا مثل كاسي dambeeya bay istaaro barnaamij bileeyeen madaxda soo xusho soo doorta barnaamijkaasina waxay metelaan shacabka marka ma oran karo haday noqon dawladda kama jirto waxa inaga ambanaya waxaan doonayno marka labada dastuurkooda wuxuu u dhigayaa midnimada Soomaaliya marka midnimada la sheegaya waa tii labadii gobol
waqooyiga ee ingiriisku haystay ee maanta somaliland iyo tii talyaanigu xukumayey ee koonfurta ahayd ee maanta soomaaliya ah labadaa dhinac ma kala go'i karaan waa muqadas eryahaasaa la isticmaala taa si lamid ah somalilandna dastuurka u yaala 1993 la ansixiyey ee afsida loo qaday wuxuu dhigayaa waa muqadas gooni isutaagga somaliland horta marka horeba anigu wax muqadas la yidhaahdo ma qabo muqadas waxaan u aqaanaa diinta islaamka iyo waxyaabaha muxarimaadka waaweyn sida jiritaanka alle iyo kutub waxyaabaha dee diintu ay faraysay midnimada soomaaliyeed way burburtay hadday muqadas ahaan lahayd may burburteen lama taabteen somaliland gooni iskutaaggeeduna muqadas maaha waxaa suurtagala fi yowm min alayaam sida taa soomaalidu u burburtay ee weyneyd ee labada gobol ahayd inay iyana ama qaab kale yeelan karto ama ay tii ay ka timid dib ugu noqoto mustaqbalka yaa ka saadaaniyey yaa gacanta geliyey waa waxyaaba loo wada bal reeban karo weeyaan oo ma odhan karo 100% weeyaan markaa labadaa awoodood ee labadaa dastuur kale sitaa markay meel isugu yimaadaan ilaa ay dastuuradooda dib ugu noqdaan oo shacbiyadoodii dib ugu noqdaan oo ay si kale iyo qaabo kale uga wareegaan isma marayaan oo midooda dastuurkana qabanaya markaasoo kale aragtida shirkan dooda noocan dad aan iyagu ahayn markaa labadii awoodood oo go-aamo ay wax kaga bedelayaan ama isugu soo dhawaanayaan ama ay kuba kala tegayaan ay ku gaari karaan aan ahayn heerkaa hoose ah ee dadkaa ama aqoonyahan lagu sheego ama wixii doonaha lagu sheegay isu imanaya wada hadlaya anigu uma arko wax dhibaataa waxaase dhibaato ah qaabka dooda u dhacayso sida looga qaybgelayo mawduuca sida loo maxay ahayd toy loo adresgaraynayo loo niqaashayo wixii imika halkan laga sheegayay iyo dhabarjabka la sheegayay iyo qaabkii loo hadlay iyo waxoo dhan xataa waxaa muuqatay saddexdii xubnood ee toos uga yimi somaliland inaanay horeba isu soo arag waana wax iska ogeyn ay golokafuur ay ku ahayd arrintu dhaliilaha noocaasi way jiraan oo weliba fara badan laakiin dood noocaas oo kale ay dhacdo anigu waan soo dhaweynaya aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdilaahi warsame waxa weeye isaguna oday runtii in badan qurbaha iyo siyaasadda iyo arrimaha ku dhex jiray doodahana aada uga qayb gala aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa iyo kelmadda ah maxaa la yidhaahdaa sida aad adigu u aafisay dooda بسم الله الرحمن الرحيم أدي عبد المحسنتين إن كل كان عاون سوول بعض الأمانتين أنا أقول ما قرنا يسوتها شركة وبد الشيء صوماليا هي صوماليا شركة وحافلة يوم كنا لو تلاقي علي وحنكسر على جيس كأفريقيا الوزراء إثيوبيا هرسة علي إن لقى ضاله لكن آخر يوم عيسو بد الشيء صوماليا هي صوماليا أنا مركب هربا عبد الرحمن معي صوماليا هي صوماليا ولا الله ترى وحكي لي ده إلا فهموا صوماليا محتاج صوماليا لم حكى إن صوماليا هي صوماليا لقد بقوا حسمية لما كنا اليوم بقوا شري برلين يجا حيدامي وسمية تودوا لنا واتاس تي وحابد لي إسرائيل Somaliland labada dal markay israaciyeen labadaba dal xor ay ahaayeen oo midna maalinta xoroobay midna uu xor hore u ahaa xorriyaddii la qaatay wax kasta baa noqotee dastuur baa yaalay shacbigii soomaaliyeed ama jamhuuriyadda soomaalida ay dhigteen dooda somaliland kaliftay inay ka baxaan dowladdaasi dhibaatooyin soo socday baa keenay dhibaatooyinkii anigu ma qabo inay ahayd dilkii iyo garaacii iyo wixii ay ahayd maaha dalkii jamhuuriyaddii oo hagaagsan oo dastuur oo shaqaysa baa la inqilaabay inqilaabkaasna wuxuu baabi'iyey dowladnimadii jirtay markaas marka waa inqilaabkiisa heshiiskii dowladda jirtay uu baabi'iyey inqilaabkiisa 69 anigu waxaan qabaa markaan mustacmarad soomaaliyeed ay la galay maxaa loo galay
dadku ma ogidine 29 November 1969 baa dowladda Soomaaliyeed ugu dambeysay intii kale xoog baa lagu haystay maxaa baabiiyay dastuurkii dalku lahaa baa la laabay dowladda militariga dastuurkii dalka ka dhaxeeyay ee labadii dal ay isugu yimaadeen qorteen ay ku heshiiyeen baa la laabay iyo xamaanta xabka ma jiraan runtii ma qaadan dowladda baa baa intii kale xoog baa lagu haystay xoogii lagu haystana wuxuu lumay 19 markuu baana dee dalkii waa inuu laba helaa dowlad shiis damba gasha oo dastuur damba la qoro in la kala tago kala tegtaankiina reer Soomaaliya ma bilaabeen reer Soomaaliya bilaabay waxay ku bilaabeen dowladdii la wada lahaa ee Soomaaliya la isku oran jiray magacood bay gaar u baxeen oo waxaan noqonay dowladda Soomaaliya oo madaxweyne leh شمرد بلس سومالا دي صوت كان يقول سكوتن بهشيين هشيسكي هشيين إذا سومالا هشيين إلى ما أنت بهرجلين مركا ما خلاص ما أنا ما كان راح اليوم هشيسكي هرجلين سومالا واحد سا مركا نروح نقبع إن سومالا الله الله معها سومالا هشين أو هشيسكي قلة أسحين هرجلين مركا دو حبض هذا هي هشيسكي أساسي هو حوي بعد البابا قبل هذه أضل ما صنتها وحن قرعن كخفرة حق الرجع بنكرة واحد دوني أنا ولا شيء كسر دويه يضنا بالهذا تمركو وحويه هو يمكن و تذكر أبو العيال أبو حقوق السنة أما أبو دون ضلالة شركة جبوتي سيدا بدر كسادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين إلهي وهرتم هذا لحد نسوي كان دمانتني نقول رئيس سومالان السودان حافظ يا معارض لنا عوال بق سومالان ومال نقول ده يطمع ما يدينا عوال بقى وين نقول ده سما أنت وحوي سومالان دوا وين بابتر سنة كنتي Soomaaliya laga bilaabana gobolka Afghanistan jeclaan lahaa oo aynu ka fogaano waxyaabaha shirkii runtii sidoo ahaa waa laga jeediyay way Somali heritage shanta Soomaaliyeed bay sidoo shanta Soomaali markay isku yimaadeen dantooda wixii ay qaban lahaayeen isbedelkaas mandaqada ka taagan ayaa horta la isugu yimid taas hadii la isugu yimid banaanad la sameeyay in Somaliland dad kooban oo aan ku soo talagelin waxaan qabaanad dadka ergadaasi inay heritage u tageen waxa shirka lagu iclaamiyay shir walba title buu leeyahay maanta waxbaad noogu yeedhay waxaan feedback inaan ka bixino wixii dhacay wixii baan haystaan meesha la tagaya dadkaasi waxaan qabaa horta ama bileen garaynayo haday xitaa doojiba keenani haday wax qaldeen baan wax meesha ka dhexdhashay baan u arkaa oo mu'amaraadka oo ay wada wixii madaxa lagu tilmaamay ee Soomaaliya ka socotay dhinaca koonfurta ka socotay way Djibouti baa joogtay shan Soomaaliyeed baynu hortana insha Allah na shanta Soomaaliyeed markii horena isukeen baa hada dream baa jiray dreamkiina xambaaray halka la geeyay baa jiray hadii si dreamkii hirgeli waayo de Gulf Cooperation oo yeeshay GCC wadamada aragtay de wali gobolka Bahrain waa magaalo kadar iyo Bahrain iyo mid walibana de waxa weeyaan waa dawladda ay dan gaar ka dhaxayso because the Peninsula wada degaan Peninsula isku mid ay wada degaan waa dad af iyo dhaqan iyo guur iyo dhaqan iyo si walba ka dhaxeeya ninka Cumaaniga Imaaraadka guriga ka iibsan kara inuu ka guursan kara oo laakiin waa dawlad iyo dawlad marka anagu kale dreamkii barigaas ee Somaliland markaan ahayn Somaliland dread aan wadnay ee dhicisoobay kii oo la soo revive gareynayba horta la isugu yimid oo la lahaa shanteeni ama ku dhex jiraan maxmiyad xitaa de bilmetal Kenya oo kale iyo de wadankeena kale inaha Ethiopia oo kale still hadana de haykal bay horta jiraan marka haykalada isu yimi oo Djibouti ku martigelisay heritage bay haysan ula jaan qaadi karnaa maanta isbedelka ka dhacaya marka aadna waxaad u aragtaa ku raacsantahay still I didn't finish my thought tii oo jirta doodii golka fulka oo sheegay Maxamed Baashi baa yimiyo dad aan diyaar ahayn ayaa isu yimo panel fadhiisay taana xaq daraaban u arkay way in dad reer Somaliland panel soo fadhiisiyo oo aan iyagu dood meesha iyo ajanda la iman oo lahayd walaalaha ayaan rabrana kala qabta meesha ma yahay shanta Soomaaliyeed ee noo gar qaada shanta Soomaaliyeed dan gaar ay wada rabeen indaqada geeska maxay kaga kala galaabay
tii oo dhacday ina mu'aamaraad halkaa anigu aan leeyahay weliba dowladda xamar baa ka dambaysiyo embiyadeeda inay soo fadhiisiyaan kuwana ka yeelaan horta qalad weyn baanu arkay waayo shirkii wuxuu u dhacay baryootan negotiation waana la laayay xabaala faqa waxa weeyaan qofka bil'aadmiga haddaanu waxaan uu la imanaya marka hore kasoo talagelin lafteedu way ka dhiciso bisa way kaambilayn saddexda qof ee meesha fadhiistay midba jagu u dhaqaaqay waana qalad inay arrintu caynkaa u dhacdo somaliland dhexdeeda horta referendum baa la sameeyey wayna dhacdaa adduunka meel ishaysa maanta waad arkaysaa brexit baa intii u badnayd isku raacday maanta kasoo horjeeda adduunkana politicsku waa isbedbedel maanta sibaad waxaa aragtaa berri sibaad waxaa aragtaa nimankii u kaambeyn garaynaya maanta waad arkaysaa waxa ka taagan marka waxa weyn maadaama aynu inagu markii hore lahayn somaliland referendum bay qaadatay referendumkii ay qaadatayna waxa weyn waxa dhexdeeda iyaday u gaaratay samse laakiin halkii bay taagan taho dee wuxuu nimka nin iyo gabadh hadday iskursaan example ma hadday rajo kala qabaan oo ay naagtii leedahay bilmeter ninkii dee odaygii noo mislaxo maxkamadaa la isla keenaya dee waxaan adigu samaysay markaayiga daaka haddii se la kala rajo dhigay dee arrintu maba jirtee maanta warqadii baa taagane warqadii oo qof walba dee uu riisan garaynayo un weeyaan aad iyo aad baad mahadsan tahay fikir wacan iyo dood wacan baad ka qayb qaadatay maxamed mooge oo Sudcaal gobol asaguna dibadda ay nooga yimid ayaan doonayaa inaan kelmadda kusoo dhaweeyo si uu bal hadda asaguna aragtidiisii ku aadanay shirkaasi uu uga hadlo macmid soo dhawo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamay walaal hablaha iyo ragga meesha xafladda kasoo qayb galayaan dood cilmiyeedka ee lagu eegayo shirkii ka dhacay Jabuuti dad badan baa laga yaabaa inaanan iskarinin barasho wanaagsan Northampton baan deganahay maxamed moogaa la yidhaahdaa qoladii haddaad u jecleedeenna waan kasoo jeedaa intaa markaa aniga aragtideeda geedka marka uu baxayo berigii hore qori yar baa lagu taagi jiray si uu toos ugu baxo haddii qorigaa laga ilaaho uu qaloocan jiro sidoo marka dambe uu toosa way adkaan jirtay marka horta arrintan imika Soomaaliya iyo Somaliland ay isku fahmi lahayn horta markii hore la isku biirayay baa qaladaad badan dhacay marka waa la isu keeni lahayn imika urtida hadda waxa weeyaan horta in loo wada hadlaa ceeb maaha laakiin in hore loo socon waayo ayaa dhiba shirkii maanta dawlad Jabuuti ka dhacana aniga aragtideeda wuxuu ahaa shir markii hore qorsho Soomaaliya iyo Somaliland la isugu yimid oo hayne aragti markii dambe meesha ka dhalatay ayuunba hadiyo doodii ka soo baxday sideedabana adduunyada waxaa la qiimeeyaa waxa shafaawiga la yidhaahdo qofka hadalka lama qiimeeyo wixii la qoro ayaa la qiimeeyaa horta wax qoraali meeshan kama dhicin in la doodo ama la dacwiyana ceeb maaha oo qaladaadii sax labadu way kasoo baxayaan ood ka faa'iidaysan kartaa iminka shirarka dambe soo socda waxaa laga yaabaa inaynu ka faa'iidaysano wixii dhacay oo matalan dadkii meesha tegay iyo dee aynu si fiican looga fiirsado laakiin anu waxaa leeyahay waqti inagama tegina arrin baa muhiima horta sideedaba marka arrin loo galayo in daacad loo galo wey marka qaarkoodna waxaad arkaysaa Somaliland lafteedu inaanay wada soconay kala socoto oo imika markaan tusaale soo qaato marka imika shirarka laga qayb galayo dad gaar ah baa baxaan waxba idin qarin maayeen sideed iyo xabad koona 10 kaas oo israaca dad badan oo reer Somaliland ee meesha way degan intay kuwaas maqayina anigu ma filayo inuu guul gaarayno sababtoo haddii aad istiraadaan duceeyaba annagiiba habaar hoosta ka tuurayna marka qaarkood waxaa tirahdaan ictiraaf baa la raadinaya moogta inaga dhexdeennii baan is ictiraafsanay marka horta marka hore ictiraaf ilaahay ba haye waa inaynu horta inagu marka hore is ictiraafna oo inuu is aqoonsannaa oo inuu is aaminaa oo ilaahay dartiisu jeclaana intaa marka la helo marka dee la baxayna waa in la isu yeedhaayo haddii la ku runyahay aan hoos loo wada hadda la yidhaho waa soo wada baxaysa meelaha soo dhaweeya aniga ilatay in la wada hadlaa ceeb maaha in hore loo soco waayo ayaa ceeba laakiin dee mid yaan la ilaawi dee doodii meesha ka dhacday dood iska caama bay ahayde ma ahayn rasmiya oo labadii qolo ee rasmiga ahaa iyo dadkii la soo xulay ee hadalka ugu dambeynta go'aanka gaadhay may joogin waxaan uslee faa'iida inooga soo baxdayo qaladaadka dambe inuu iska saxaynaa marka adigu waxaad leedahay waxay dood dhexdhexaada waan aad iyo aad baan u mahadsan tahay weli dhinaca bidixaad ka rabanahay anigu weli Zainab bal hadda adiguna kusoo dhaweeyo dooda assalaamu calaykum wa rahmatullahi salaamay anigu dood ma ahayn ee waxa gumiyad la isbahdilay
dadkii Soomaaliland halka tagay bahdilaad foolxumo timid amba shacbiga haadaan amba dawladda ka socdaan waxaan xoog anu sii cabaaranayaa shacbiga ma aha dadkii darajada hayay wasiirka arrimaha dibadda hore joogay Maxamed Biixi Yunis oo imikana darajo ka haya darajo sarwiil ka haya dawladda Soomaaliland u haya oo xisbiga ku jira kaasana cabaaradu saaraya talabaad reer Soomaaliland marka loo yeero marka lacag ba meesha loogu yeeray mise qarowkooda loogu yeeray horta maana question qofka maskaxdiisa wax weydiin karay wax naftiisa intuu wax weydiiyo oranay halo waan tagayaa meeshii laakiin maxaan horta u tagayaa question ba marka hore si iga horeeya yaa jooga si abuse kala jiro 150 qof baa fadhiya stage reer Soomaaliya 5 qof oo Soomaaliland ah laba darajo leeyihiin saddexda kale shacbi yihiin shacbiga darajo ma hayaan shacbiga soo doon u socon kara laakiin qofku hadduu title ku abtirsado waa inuu title-kiisa sharaftu ku ilaashado ilan dad buu title u hayaa markaan anu imika title hayo title-ka waan ilaashada oo office-ka markaan u shaqo tagan title-ka hayo qofka ii soo gala waxaan ula dhaqmayaa establishment-ka waxaan ixtiraamayaa meesheeda dembiga xoog uu waxaan saarayaa reer Soomaaliland-kii intii tageen waliba darajada hay iyo dembiga la isla hadlaa ceeb ma yes laakiin tan oo kale ceeb bay ku ahayd reer Soomaaliland anigoo Soomaaliland ku abtirsada ceeb bay u ahayd qof kastoo reer Soomaaliland ceeb fool xun bay u ahayd marka reer Soomaaliland waliba ku dawladda ku jiro waxaan leeyahay war dalkaad matashiin oo jeebka darajkoodka waxaad u sidatiin shacbiga reer Soomaaliland waxaad u sidatiin caruurtii agoontaad u sidatiin inka joogta Soomaali ilmaha dhalanayad u sidatiin war ilmaha ixtiraama magaciina ku hadlaysid marka khalad bay hay marka arrintaasi doodaas adiga qalad kula muuqataa Soomaaliya haddaba inaan xaggan ay xanuuntay walaalkay ku soo dhawow adiga oo maxaa la yidhahdaa dee isla su-aashii faarax ma wadantahay walaal dhammaantiin waan idin salaamayaa horta waa the interesting debate dadku inay wada hadlaan oo dhacdooyinkaas oo kale wax la iska weydiiyaa waa muhiim waayo dee wuxuun baa kasoo kordhaya shakhsiyan anigu waxaan qabaa marka ku horeysa horta inaynu isweydiino waxa weeyaan kulankii ka dhacay Djibouti ee Heritage soo qaba qaabisay maxaa loo soo qabanqaabiyey title-kiisu wuxuu ahaa isbedelka ka socda geeska Afrika ee ka bilaabmay dowladdan uu hogaaminayo Abiy Ahmed ee Ethiopia isbedelkaasi in intee leeg ku yeelanaya dowladaha Soomaaliyeed ee geeska ku yaala waxa lagu Soomaali Ethiopia Soomaali Kenya Somaliland Djibouti iyo Soomaaliya ayaa meesha timid waxaan doonayaa inaynu markaa dadku aragti badan baa dee laga subjectay laga wada dhawaajiyey saynu wada ognahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku dhawaaqay in wadahadalkii Soomaaliya iyo Somaliland uu joojiyey and I think waxaan filayaa press release-kii Heritage waxa ku jira inay invitation u direen in xukuumadda Somaliland ay kasoo qayb gasho laakiin si ay declare ka soo diiday ta kale dadkan lala soo xiriiray maadaama meeshu ay tahay Heritage oo ah maxad cilmi baaris sameeya dadku waxa loogu yeeray dad iyagu ay sameyn karayeen waa ma aqoon bidiyeen runtii oo bulxano jaamacadda Hargeysa jooga dadka saro qodka bulxano waa maasantay way oo jaamacadda Hargeysa jooga iyo dadkii civil society ahaa bay iyagu sameyn karayeen inay yimaadaan oo dooda ka qayb galaan طبعا ما aaminsanay dooda ah ismay ogeyn somehow I think iyaga laftigood malaa'ig excuse bay raadinayeen laakiin dabcan way sugaayeen dooda meesha ka jirtana wayna ogeyn kow waxa weeyaan inagu haddaynu doonayno wax la yidhi qofba intuu cadaaladda u jiro ayuu cadaalad heli karaa sax inagu reer Somaliland nahay dhacdooyinka caynkaas oo kale markay dhacaan inagu ma de pick and choose ma samayn karno sax shirkan shir balaaran buu ahaa arrimaha Soomaaliya laga hadlay arrimaha Djibouti baa laga hadlay dhaqaalaha geeska Afrika laga hadlay shir aad u ballaaran buu ahaa laakiin waxaad moodaa doodeenu inaan ku soo koobnay wada hadalkii raay banalkii qoladii ka timi Somaliland ee maalintii hadlaysay inuu shirku baynta ahaa gabagabada Somaliland ay ahayd shirka xigtaankiisii madaxweynaha Djibouti baa xiray session dheer buu ahaa one day qaadanayay marka inaga laftigeenu inaan subjective noqon oo inuu wixii the whole bigger picture ka eegno ayay horta haboon markay noqoto shirkani dadkii ka qayb galay waxa weeyaan Soomaaliya iyo Somaliland dhowr waxba dhex yaala arrin waa arrin dawladdu ay matalaan dawladda federaalka ay matasho Somaliland ay matasho waa sharci iyo qodobo ku fadhiya dawladnimo wada hadal negotiation ay kala
dad civilian looma igman dowlad baa loo igman inay taa qabato meel dhigtaa oo hadalkaasi ma socdo dadkani waxa ay u tageen meesha inay aragtidooda soo maarkaan discussionka guud ee inaga saameynta nagu leh haddana Soomaaliland geeskan ku noolaa meeshana waxa laga wada hadlayaa saameynta isbedelkan Afrika ka socda geeska Afrika ka socda saameynta uu nagu yeelanayo taasaa geesay in aragtidooda ka dhigtaan waa academic bulxan intaasoo kuna caruura ayuu xudhiga waa dadkii carbinayay dadkii isbedelka wax ka qaban lahaa dabcan inuu tago inaynu ku boorido midda kale waxaan doonayaa halkan kalena ka idhaahdo saddexdii qof ee ka tegey reer Somaliland ahaa courageous people bay ahaayeen si qurux badan bay u doodeen dood ma aha doodu markii deegaanka kama waxaan isku haynaa goormaan kala baxaynaa waxay articulate gareeyeen dhibaatada ay tamarayno runtii way noo wada hadleen dacdooyin dhacay bay ka hadleen Soomaaliland waxa weeye inagu waxaan doonaynaa dabcan inaynu kala baxno so to speak marriage-kaasi u dhamaado amar sheegaysa marka waxa weeye dadka aynu doonaynaa inay ina fahmaan waa society-gii dadka kale meelaha kala joogay Soomaaliya joogay inaynu qancino waxaynu tabanayno si caqliyan aynu dadka uga dhaadhicino si laftigooda ay sympathetic ugu noqdaan keeskeena oo waa mid responsibility saaran dadka civilianka saaran markaan waxa qabaa inay ka guteen horta awoodda ay guteen waxa kale oo jirta macadka waa cilmi baaris bay sameeyaan ma aha state meel dee dad loogu talagalay academic ay arrimaha ay ka wada hadlaan ayay ahayd waxaa jiray saad ogeedeen oo kale Somali studies oo iyagu laftigoodu mawduuc kamida lamida hargeysa ay ka dhacday Soomaaliya oo waqtigii maxaan ku rahday Somali week uu dhacay hargeysa waliba jaamacadda hargeysa ay martigelisay hargeysa gudaheeda ayaa doodan ay ka dhacday oo dadka qaar joogay maxaan ku rahday Djibouti joogay ay hargeysa yimaadeen aanu keenay oo laga wada hadlayay doodu way furan tahay dadku waxa naga dhacay ganacsi naga dhaxeeya we can disagree all you want dadku ganacsi naga dhaxeeya waxa naga social ties naga dhaxeeya dadku inay daad ay socotaa marka muhiim marka doodaas waxaad u arkaysay dood halkeeda iyo waqtigeeda iyo muddadeeda iyo tankeeda mid baan raacsanaya waliba inta laga soo xidheen waxa weeyaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay kaga taalo qof Somalilander oo tagi kara ama kaga hadli kara ama debate ka gali kara ciddi doonaba oo ka xiraya oo xanibaya habeerata ma jirto waayo anigu maanta Somalilander baa social baraha kulanka bulshada waxaan kaga hadlaa siyaasadda Ingiriiska ka hadlaa taduuha kaga hadlaa adigoo muwaadin Somalilander maxay dhibaato ku noqon kartaa inaad dad Soomaaliyeed discussion la sameeyo arrimo khuseeya geeska Afrika waxaa la sheegay oo ay dadka hore ka dhawaajiyeen in ay jiraan dad mas'uuliyiin ah oo goobta joogay oo xilal mas'uuliyad ummadda reer Somaliland haya kuwaas laga hadlaya arrimahooda ay ka hadlayaan waxa joogay sidii gabadha ka dhawaajisay waxa joogay Maxamed Biixiyoonis oo xubin hoggaanka sare ee xisbiga wadaniga waxa joogay xogayaha xisbiga wadaniga Khadar baa joogay labaduba si courageous ah ayay qadiyadda Somaliland uga hadleen u hordhigeen u hogo tusaaleeyeen way ku ammaaneen aad baad mahadsantahay Cabdalla Saale waxa weeyaan wayna wada garanayna Cabdalle waxaan doonayaa inaan muuqaalka uu asaguna ka qaatay hadda shirkaasi inuu asaguna soo koobo بسم الله الرحمن الرحيم ربي نستعين على امور الدنيا والدين صوت كان اير كوري وقت هذه برضه مع سنتين هذه كان ساي ما شاء الله عارف بعدين هذه الجمله فرحساني أنا ضدي جيبوتي runtii waa la qodobeeyo dhowr baa loo kala qaaday waxaan oran lahaa oo kaliya anigu marka hore doodaasi hadday tahay dood dad shiciba oo meel isugu yimi oo de sheekaysanaya ya oo aan awood u lahayn inay wax ka bedelaan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya hadday tahay iska sheekaysanayaan de ha waxba aanu deef ma qabata laakiin waxaan anigu isleeyahay waxa weeye markaad eegto dadkii meesha yimi waxay ahaayeen dad mas'uuliyiin oo ra'iisul wasaarahoodii baa meesha marayay ya parliamentarian kuwii oo dhan baa meesha marayay marka horeba way ku soo talagaleen anigu heritage inay abuuraan god yaroo ay Somaliland ka juqajuqeeyaan marka mar haddii kaasoo dhan 120 qof intay marka hore intay isugu yeedheen
ay ku soo marti qaadeen 3 qof oo reer Somaliland arunta Somalilanders ka soo jeeday حوار لأنه هو ما يستوي سوالان دريه لكن هو دينعنا كيمي صدق قفوا بيها أنا وين تنسلي يو إن وزير كافري مركا هرتا وحي هاي ما يدي لتر نينو يصدق راقب against وحي هاي بقول يكون مركا تاسينو وفول حمو heritage يدو الدولة الصومالية ودونيسا إن أي مقارنة أصلاً شيء أي قدلولا وهيشو أي كسو فرقليسو Somaliland أي سوء ديكسدين heritage oo ay yiraahdeen shirka soo qabta shirki wixii loogu tala galayna Somaliland wax kama xuseenin markii hore de WhatsApp u sheegteenay waxay ahayd waxa loogu tala galay in waxyaabo kale laga hadlo oo saddexda ay magaranaysa arrimaha kan soo kordhay laga hadlo saameynta ay Somaliland ku yeelanayso saameynta ay ku yeelanayso in Soomaaliya haday doonayaan in laga hadlo de Somaliland runtii dawlad baa ka jirta waxa weeye ninka Somalilanderka anigu دكتور بلحن والله العظيم وحويا من دكتورة أو متعلمة أو أنت سو ضد سو ساري أو مجنسة عقلية مسكحلة أو أنا أدو فاهم إنه هاي نفس رئيس مالان أسي شدة هو أقويها runtii inuu kuwaas oo kala hor fadhiistaba ma bay ahayn ba markaad galo waxa leedahay doodaasi waxay ahayd aad iyo aad u mahadsantahay Cabdalle kulli anigoo in walba ku soo noqon doona hadii waqtigu ina siiyo balan hadaba Khadar Cali Gaas aan xaqiisa u jeesto Khadarow waad aragtaa dooda halka marayso waad aragtaa sida loo kala ra'yi duwan yahay adiga iyo maskaxdaada yareeyaan iyo dooda Djibouti جالية SSUK oo isku soo duubtay barnaamijkan dooda mar alla markay wax soo kordhaan wax fiican in ay dadku iska weydiiyaan aan waxaan u arkaa qofku markuu meeshuu tagayo meel aadan garanayn waxay tahay inaad tagto ma marko haddaad og tahayna oo de dhinac ku og tahay heritage weyn ka wada dharagsanay dadka reer Somaliland maxad kale ila heritage caynta moderate gareynayeen isaga asaasay uu ogna caynta fikirkiisa uu ogna waxa aaminsan yahay marka caynta wuxuu wato marka hore sawir baa la sawiray oo dawladda Djibouti laga iibiyay aanu sidaan fikir ahaan qabo dawladda Djibouti waxay iska dhex weyday isbedelka gobolka ka jira marka waxay dib ugu noqotay inay taladii Soomaaliya gacanta ku haysay oo moodo inay intan farmaajo yimid ka siibatay inay dib u soo qabato sida daraadeed bay u qaban qaabisay shir noocan oo kala ah isbedelka lagu shaambadaynayo waxa kale oo filayaa inay ku tala jirto inay dib wada hadaladii Turkiga bariga hore joogay ee halkan ka bilaabmay inay Turkiga geynay in haddana dib loogu soo celiyo Djibouti taasina waxaan filayaa inay meesha ku jirto موضوعية كلا اللي هو على جهة الله إنه ما ينعرف موضوعية ذا كلا وأنا أركي مركو حري مدحوينه لكن ده ما يهين واحدة ببليسكرية مركا طوطن طلبة ساعدوا ده بدو طوبان ده طلبة ساعدوا مركا ما واد قرن كتها إن قيمها يو يعني تايم يسوي كيسين طوط الصومال لانكش مركا واحد هذون مد لينقص رأيي dadkuna umadu markay de issue waxa weeye masiir umadeed waxaan ku doodaynaa qof kasta intuu iska qaato fikirkiisa kuma doodayo umadu hadaynu rabno inaynu dadkan kala qorano ma kala go'ayno nimanka waxaan isku tarsano waxaynu u been horta la kala noqonayno marka waxa fiican de masiirka umada inaynu qaran ahaan meel iska wada istaagno iyadoo 2 bilood ka hor dawladeenu mamnuucday way joojisay wada hadalladii way yiraahdeen sidii hore u gali jirnay yaan loo galin waayo imka wada hadallada hore khaladaad ku jiray waxa kamid ah yani de Soomaalidu ma loo jiray wada hadal de nidaam saysan hatta maanta dhan halka laba ino muqaddas ma ay waa muqaddastaas waa u bilaabay marka xataa aan waxa qabaa fikrahan hadii la wada hadlayo warbal inayna dhex joogo yani de dad in kala dhex galaan laakiin la inoo kala reebo ha de ma ummadii marka dadka la dhex xaadinayo dad baa dhex gala laakiin labada qof oo isku haysta hadda halka isku xarayso maanta wala isku daraya marka dambe waaye hawadaasi waxaan ku heshiinaynaa war bal wax guud umba bad wada hadallada wax ku soo ururay markii dambe wax iska guudo aan midho dhalahay
marka aan waxaan qabaa inay nimankaasi inaanay marka horeba heritage waxay wadato aynaan qayb ka noqon waayo heritage waxay ku caan baxday oy caan ku tahay cadaawad badan oo somaliland u hayso cayntaa moderate garanay caynta halkuu somaliland ka taaganyayna waynu ognahay xitaa haddaad u fiirsato markuu dooda qaybinayo yani dareenkiisa markuu dadka qaar hadlaana siduu u qoslayo marka qaar hadlaana dareenkiisa ka garan kartaa inaan yani ninkaasoo kale ninkii moderate garayn lahaa ama dee qabanqaabin lahaa shir noocaan aynu inagu marti ugu noqon lahayn inaanu ahayn aad iyo aad baad mahadsantahay khadar cali gaas waxaan doonayaa inaan qaasim aan kusoo wareejiyo qaasim soo dhawaad بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين رجية تمربا وحمد السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبعد أساس يوكي وحنقوم هذا المين شاليد يوكي ولما يستلم روحان ويا لي إن أرمها كسوة ضبحي دلكني ما أنت تاجن يشينا الصبح هنا كانتو إن لقوا ضحله وحل يسكون ديو مركل يسوي ما توصلنا وكلا وضع هذا وحصاب حدا baa la ururiyaa qudan waxa laga yaabaa dadka goobaha joogay inaga bay naga maqnaa inaynu kala faa'iideysanay ayaa laga garan karaa meesha waxaa horta ugu horeyn sida laga dhawaajiyay limaanta koowaad haddii meel lagugu yeedho oo aad ka qayb galaysid oo lagu sheego waxa lagaga hadlayo wixii intaa kusoo kadib laga daba keeno qofka ka qayb galaha bay u taalaa inuu markaa u diyaar garoobo iyo inuu iska joojiyay in kale sidaynu la soconno heritage meesha ay doontaa ka soo jeedo niman dhalinyaro ah oo aqoon leh weeyaan waxay ka fekereen arrimahan geeska Afrika ka socda isbedelka socda iyagoo eegaya in general Soomaaliya shantii Soomaaliya iyagoo eegay shantii Soomaaliya way ku marti qaadeen gogashana waxaa dhigay Djibouti sidaan la socono afarta waddan kale Kenya si lixaad ay uga soo qayb gasho waxay u soo tirsatay xukuumaddu dad ay ogtahay ayaa loo soo diray oo waxay yimid rag xilal haya iyo parliamentary way yimaadeen Ethiopia sidaas oo kale ayaa iyadana looga soo qayb galay oo ay u joogeen Djibouti wadankii marti qaadayay ee gogasha lahaa wasiiradiisu waa fadhiyeen ayay ahayd Soomaaliyana sidaas waxay u soo tirsatay xukuumad dhammaystiran oo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo golo baarlamaan oo xoog leh ay ka mid yihiin Somaliland waa la soo wargeliyay waan ku dhaliilanaa xukuumadeeda inay geeska Afrika isbedelka ka socda ay arki weydo oo ay meesha ka qayb qaadan weydo si xun weydo waxyaalaha ka taagan oo ay dib u gurato meesha ay ku gorgortami lahayd hadday gorgortan baadana ayna ahaayeen nimankii iska sixiraayo haddii qodobkan la keeno xataa odhan lahaa golahan kama banaana ee aan ku cidleeyeen dhalinyaradii aqoon-yahanada ahaa ee meesha tegey dhalinyarada aqoon-yahanada ee Somaliland meesha tegey Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka ugu dheer baa dadka ugu ayaan daran ayay tiraahdaa waxa socda geesku weyna gubayaan qof baan danaynayn baan ogeynba maanta waxa geeska ka socda iyo isbedelka ka socda laakiin ninka aqoonta leh waa dareemayaa waxyaalaha noocaas oo kale ah waa loo baahan yahay marka waxaas oo kale markay meelaha marayaan in laga qayb galo aad dib u guranin waa loo baahan yahay run ahaan dhalinyarada tagtay waxaas arkayeen مشروع ماشي كسر لكن تايتل كماشي بقرن وأركيه أنت أتجين أنت عصيحة مركي ماشي تجين الدود هذا قرح بدن وقيبه هراء ويكتشيه وحسيت مدونه عن لوض سقنا ما أنتنا نيشيجية هذين كور هين اللي يرد السومالي لان ماشي تكتي يجا سوتشي دي فكر كيها السومالي لان بدنا الله سمي يجوا دوني إن المقدار الشيكر نقصدان وشرط الصوماليا كجر نقصدان حدود ويقرشوا هذوها ورحدي عديقو كان يدلتشوك تاي أتحبي كتاي وأتكون أحسن تاي الدولة أنا أقول مدح بنار ولا أقول أحسن هي من دونية هدي كلا تقدر تحبي كو هينا سكان كانوا سكان سعودي ولا هذا برشلونة عاصر أي إن ما كان الدونية يعني ماشي كفشلة لكن وحبا اسبدلي دودي waxay noqotay dadkii baralka fadhiisteen reer Somaliland kuwii u jawaabay ka soo jeedeen reer Somaliland bay noqotay labaduba reer Somaliland bay noqotay intii u jawaabtay reer Somaliland bay ahayd 90% information ka hadlaysay kan ee xagga Soomaaliya matalaysa haday noqon lahayd dad xilal u haya haday noqon lahayd xildhibaano haday noqon lahayd dad civil society oo meesha lagu marti qaaday dad noocaas ah dhalinyaradeena meesha tagtay dadaalayay oo run ahaan aad u garnaqsanayay oo dooday waxa lagu afkii dadkii afkii baa lagu gooyay iyaguna way garan waayeen markii halka ay marisay inay yiraahdaan intay dib u tashadaan oo ka baxasha aynu dib u dhigano qodobkeena soo aynu dadkeena ka mid noqono meesha aynu dhex joogno waa garan waayeen iyaguna inta taasina waxay muujisay oo meesha ka soo saartay dhammaanteen ognahay weakness
inaga xaggeena ahoo inaga lafahanteeniyo meeshii ku doodanoo kala qaybsan ayaa meesha ka soo baxday doodeenu ma aysan jiibay ahayd oo sidaa maxamed uu sheegay ma awood badnayn oo ma ahayn maaragtay sababaha awgeed iyaga lafahantooda wax badan baynu ka baranayo waxay inaga barteen horta qadiyad ahaan meeshaynu taagannahay waxaynu kaloo aragnay waxa iyaga lafahantooda ku doodayaan oo wada waxay sheegtaanba waa la waayo aan ahayn Soomaaliya kala go'ay mayso inay meesha la soo fadhiistaan marka inay qodobo ay ku doodayeen ba aysan jirin marka anigu waxaan qabaa in xukuumadeenu ay kaalinta ka gaabisay anigoo dhaliilayeen inoo maaragtay laakiin arkaya in maadaama ay wax barayeen sida ahaayeen dhalinyarada tegayna inay aad u dadaaleen ku dadaalayeen inaysan maaragtay ka harin shanta Soomaaliya ee meesha isugu yimid waxaan qabaa wax badan baynu ka baranay وأنا كفايدين كسحت وأنا قيب هذا الله ما صنطاي واحد دنيا ولا شيء أو عن دنيا اللي يضرب كل بدي دودة كديوته سوري ولا ما عارف علينا هذا والله ما سنتين جماعتين تتلاقيها كم شيء سوديني أنا وحكي الصراحة سد حديقكم في كليها الصومالي لان ودوداي أيا وحلال وحي مش هذا الكود اللي نقوله بحكمنا فكرته آدي dad maaragtay mutacalimiin bay ahaayeen oo bulxan oo kale suduuha deewaati la arkay marka wallahi gabigoodaba waxaan arkay in lagu shamuumay Soomaaliland oo laga farbatay laakiin saddexda qof ra'yi fiican iyo dood wanaagsan ay soo dhigeen waana ku hambalyeynaya dad aad tafo aan way ahaayeen aad yaad badan marnaba ma dhaliilayaan marka shirkaas aad in kastoo lagu shamuumayo aad halkaa ka garan karto nacaybka ay dadkaasi noo qabaan sidii yacnihii ay idan ay soo fariisiyeen dad Somaliland dadka waad mahadsantahay huda Soomaaliya iyo Somaliland wax weyn baa ka dhaxay oo labadaba ma Soomaaliya ma Djibouti ha noqoto wax laga yaabaa hawlo kale oo aan dadku inay jiraan Ethiopia iyo isbedelka dhacay dadku waxay uga baqanayaan Ethiopia badmada Soomaalidan waxa kaliya san dadkan la waxbaan baranay sidan raayigu waxbay arkaan xoog meel ku soo socdo dhulkan ka qaaday qaabka tirada qaba Soomaaliland horta wax lagu marmo ma waa qaran jira wey waa qaran jira doodii Djibouti ka dhacday aragtida doodaas horta wax macno loo sameeynaysa aniga aragtida wax macno loo ay sameeynaysa anigu ma arko waayo haddii aan Soomaaliya Somaliland iyagu dawladooda hadli taas oo wada leeyahay laakiin tan sida ay arkeen nimankaas waxa sabab bal arrinkana ka hadla Soomaaliya Somaliland labada meelood taagay wax dhexe oo bal laga wada hadlo waxaana khalada inaan baan ka leesay horta dad Somaliland aan matalino Soomaaliya ka soo jeedo xildhibaan anigu warskatay ka xildhibaan marxaba ka noqon kara wax macno loo sameeyo ma jiro Somaliland ma matalo awood kuma lihi ma tii karo bal xiraya daato qiimaha saban ku leeyahay marka in horta hor fariistaan waxa uu dhaabladay qaar Soomaaliya ka socda oo Soomaaliya matal in hor fariistaan marka marka shirka adigu wax qiimo laho waa jirin oo dalkeena iyo dadkeena toona soo jeediya aad iyo aad baad u wanaagsantahay dood fiican baa runtii ahayd aan qayb galay oo dadka fikradu inuu soo urursay waxa weeye aniga waxay la tahay horta marka hore dadku inay wada hadlaan runtii inay wada hadlaan dadku wax dhibaato ma leh xukuumadeena Somaliland xukuumadii hore ee Somaliland waxay fasaxday oo ay wada hadal ka gashay inay qadiyada Somaliland kala hadasho intii ay hogaanay oo ahayd Soomaaliya kala day taasi furan tahay ka sii yar dadka shacabka ah inay ama dad aqoon-yahana ha noqdaan ama dad yacni dadkii fikirkooda say u arkayaan iyaga laftooda ay u dhigaan ama ay ka doodaan ay kala doodaan cid kalena in ay de kaba sii hooseyso taasaan u arkaya wax weyn uma arkayo waxaan leeyahay arrinta muhiimka waxa weeye Somaliland looga baahan yahay dhabta ahi waxa weeye dadkeedu xukuumadeedu golayaasheedu xisbiyadeedu dhammaantood in ay qadiyada Somaliland ay ku doodayaan ay si rasmi ah isla fahmaan oo ay si rasmi ah u matalaan marka ay tagaan meel ay kaga doodayaan
arrintan Djibouti ka dhacdayna ama shirkan Djibouti lagu qabtayna mar hore waa la qusay farq ayaa qusay shirka Hargeysa lagu qabtay Somali Studies maxkamad jaamacadda Hargeysa iyo ay sameeyeen ay soo garanaysaa qabteen waxba kama duwanaa kaaba soo burxan intii uu ka yiri Somali Studies ka yiri markii hore ay halkan ka yiri Hargeysa dad badan oo halka jooga qaran aan garanayo oo reer madrasa reer Soomaaliya oo aan darisnahay halkan London degan ayaa tagay labadaba tagay oo ka qayb galay ka Hargeysa ka qayb galay ka Djibouti ka qayb galay marka maxaan ku dhahdaa ma aha marka taladaadi waxa weeye waraynu qadiyaddeena waxaynu doonayno waa inay cadaataa waxaynu doonaynaa waxaynu diidaynaa waa inay cadaataa laakiin waa inaanay waxaynu wax shaki ku jiro oo gola ka fuula oo marba qof iska odhanaya wuxuu doona aanay noqonin aad ma santay far sorry wad baasitaay anigu waxaan oranayaa runtii dadku dabcan inaynu kala فكر دوانا وصلنا وأقول وياه ودهتين النجار دم قل وضع الله ومشكلة وبرسلاس الرئيس كأنه كهلين تان أين كوكان إنكرين بين آدم كرين وأين قلوا بكهلين كرين وأين أرتكلت كرين كرين تقدر تدور جماعة أنا وما أركو حابب يراتي whatsoever إن دبعت هي كتيرتو in fact واحد على هذا إن حتى هرجسة كنعضو إن لندن كنعضو إنه ملو أي كنعضو وحويا وضعنا مربوطة بسينية وحويا قضية سوماليلاند ما يبلعبين كوبي سكاشنكي لحدنكي ما يبلعبين كهربا يبلعبين إلا هذا يسعطها سيدي ممكن كده واجيي 1969 أيه بربورتي وحي الدولة دي حلكي وناقين وضع قلي سومالي وين وضع قلي سوماليلاند بينو نحي سوماليلاند أين وضع نحين وضع دونينا وسوماليلاند أين دونينا إنه معناه هذي وناقي ذي وحاي تعي قفك أين دونينا إنه كلامحنا أين قلينو وناكو قلينو درقو قلينو ملبوم هذا ما صرتي قداش أنا أقول مركو رئيسها هدينا سوماليلاند هين إلى سوماليلاند هذا الله هذا سوماليلاند كأنه يمحوها لأنه يحرم منه قاضي سيستنا كبيرة قبل برت خوي سكاشن كي شيس فلو قري إذا لديه هاي سوماليلاند عندنا طيب برا هدينا شيس كي بقرينا وحوا هبا تود بقرينا خلط بيا أنا كان قولني كسمانا كقوعنا وأنا قفل خذ بكيلو جوه كسمانا كل شيئين مو هاي سمانا كقوعيا وحوها إن السوماليلاند أما وغوي قولني شو تاكتو أو أنا راعين سوماليا أو أنا راعين سوماليا من سوماليا كمان بداية هالراعي مركا ليش قدر بقرا أشري إذا كوي بينا فلين ولي Soomaaliya Allah hadlay waduunka wax kala iibinaya ma shaqeynayso horta ku yoro aflino meel laga baxay ma garan ma ahayd ma garanay adad ma santay Maxamed Baashi wala soo anigu waxaan aaminsanahay in wada hadalku uu yahay muhiim waliba bulshooyinka inagoo kala ah ee dagaalada sokeeye dhex maray ee burburay waxyaalaha daweeya waxaa ka mid ah wada hadalka dadka isku soo dhaweeya la is uurxaadho wixii la kala doonayo la isku garnaqsado deedna garowshiya la kala helo dadka reer Soomaaliya waxaan aaminsanahay waa halka ugu horeysa ee ugu muhiimsan ee qadiyadeenu taalo ee ay tahay inaynu ku qancino waxa aynu doonayno إنجليز كان متعلو مريكان كان متعلو أفريقيا يوين كان متعلو كرنخسي يو محكمة عيو تكون إنه بنانا قاب كأي أي نكوكلا بحينا الدنيا الأردني لبدي نقول يسوي يجيسه حتى إيمان تشامبت يقول نقول فتر الدنيا كله مو اعتراف مريكان كاي إنجليز كاي وحول ما كان تلد وحوي يعني وحوي يعني إن عينو أهنتها حوشنا لكن مهم كواحد كم يمكن حين ولا قولوا تجينا قاب كأي مو أدرس كرين إنه اللي بعتدين يا واحد بدوني يا أي متكع وقر عينه وده ياشوده أخويه هنكوده اللي يردوده سياسيين توده أنت بقى إنه لو هذا الله حياة قد يدين عدة إنه كيبنا يجنو
anigu waxaan u arkaa muhiim meesha kalena markaa uga sii gudbayna aan uga gudubno laakiin arrintu innagayna dhex taala aad baad mahadsantahay maxamuud maxamed maxamuud talo dadku wada hadli karaan oo dee soomaali baa leeyahay wax badan baa isku keen jira inaan wixii kala qaadano talabaad Soomaaliland ka daacad bay tahay mar walba maadaama xamar ku soo koro dhaqankooda aan ku furtaan loo aqaano waxa way mar walba dawladda jirtay xamar timaada ciyaar bay wada waa xaqiiqo rag ku jiro dhawaan aqaano talabaad wax kamida oo ka cadeynayna ciyaarta dee anigoo kalo intaan xildhibaan doonto ayaa la soo horfariisanaya nin Soomaaliland ka go'aanta ciyaar baa u wada Soomaaliland marka waxaan qabaa dadku way iskaashanayaan meel la kala tegi maayo waa la arkay deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland wanaagga iyo waxyaabaha dhex maray si ay ummadda Soomaalida meesha degtay Soomaaliland iyo deegaanka Itoobiya ama Djibouti ama Soomaaliya ama Kenya in xiriir wanaagsan yeeshaan oo walaaltinimo sidaana ay isku jeclaadaan iskuna eegtaan marka waxaan qabaa nimanka asxaabta dheerka daacad noqdo ciyaarta shuushiisu وترى يعني وحويات تلاضي غير سومالنا كفتن كسارين قضية السومالنا فدي كدرير كداي عيد لا لحظة أو لو كان عنكرو أو حاجة عاد كلوبتا أو لو كان عنكرو يعني جناسة يقول يستاج سومالنا حبيرة تمشتو وحيكون كان يعني مشتو وحيكاد بري يعني مشتو فدي كدرير كاسوبا سعوني الله يوم القيامة marka ay joojino oo ay nimankaasi ayna agtooda mari ayaan aad ma santay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Bixi Yunisba waxa uu ka dhawaajiyay in xitaa rag dhakhtar u yimi Turkiga berigii ay tageen loo soo diray oo la yiri la hadla halka telefoon laga soo diray oo dabeetana markii aan soo fadhiisanay buu yiri aan soo hor fadhiisanay idin baa suuga raiisul wasaare ku noqdo waxay yiraahdeen marka inaan ciyaartu ku jirto halkaas ay ka muuqataa خبر بسم الله الرحمن الرحيم horta in aynu wada hadalno walaaladii waan faraxsanahay in meesha tagiisana cidayna matalaysa ama wada hadalada aynu diyaarinayno inay ka qayb gasho waa inay xataa cid يعني Somaliland difaaci karto qadiyadaada rasanka sharxi karto soo ku doodi karto soo bandhigi karto waxyaabahan ay Somaliland goonidiis ku taagto ku qancin karto cidda ka soo horjeeda laakiin markaan u diyaar garoobin halka tagiisana aadan war badan ka hayn sida qolooyinka tagay si fiican way u hadleen laakiin waxa meesha ka soo baxday in iyagii madaxa la isku geliyo deeshan inuu niman baarlamaanka Soomaaliya ku jirun baa la soo dhinac fadhiisiyo reer Soomaaliya way daawanayeen sawirka ka soo baxay iyaguma la isdaawanay inagu baa la naga dhigay bad Somaliland aaminsan inaynu inagu Somaliland tan aad sheegaysaan ma jirtaan ayaa halka sawirka ka soo baxay la tusay shirkaasi uu tusaya marka aan waxaan qabaa in cid loo daba fadhiistaa waxaan ay jirto haddii xisbiyada qaranka iyo golayaasha qaranka saddexda gole qaran saddexda in wax la isku og yahay iyagaynu ilaanu doorano cid waliba qadiyadeena kama hadli karto dadka aqoon-yahanadana waxaa looga baahan yahay sida heritage ay think tank ugu tahay yani wada hadaladii aynu gelinay meelaha laga soo qodobadooda laga soo shiilayay bay kamid tahay heritage laftigeedu marka in dadka aqoon-yahankuna noqdaan kuwa yani dawladeena iyo golayaasheena think tank u noqonaya ee baritaaraya ay wixii marka akirmaan loogu soo noqonayo iyaguna kuwa ay namatalaya noqdaan oo ay wuxuu meel la maray aad ma santahay qaasim بسم الله waxaan taageersanahay oo aan ayidaya wada hadalkeena qaybta ugu muhiimsan inay tahay in Soomaaliya la hadlo iyagu siday doonaan ha u dhaqmeen xukuumadeena waxaan ugu baaqaynaa inay ku dhiirato mar walba iyadoo ay miiska diyaar ku tahay oo aysan dib uga noqonin sababtoo ah furuhu waa halka waxaan dhageysanayay niman United Nations ka hadlay hadda markii arrinta tan ninkan la eriyay la isku haystay arrimaha Somaliland baa laga hadlayay boqol wax oo wanaagsan baa la soo sheegay laakiin waxa adana muhiimadiisu ugu timid hadii aan gudaha Afrika laga soo aqoonsan waliba East Africa laga soo aqoonsan aysan Soomaaliya soo ogolaanin wax badan baa ku furfurmaya meelahaas oo laga baqaya waxaan qabaa in hawlgalka ugu horeeya ay xukuumadeenu miiska furto wada hadalkeenu mar walba diyaar yahay
Soomaaliya laga bilaabo oo waqti badan halka la geliyo waxaan qabaa in loo xulo guddi aan wasiiro iyo xukuumaddu aysan isku koobin guddi aqoon-yahan ah oo iwaaya aragnimo leh sidii maxamed sheegay Soomaaliland oo Soomaaliya in loo xulo waa inay ka koobnaadaan deegaamada oo dhan waa inay ka koobnaadaan sababtoo ah waxaynu masiir baynu soo celinayna ummadeed beelina beelo ma goyn karto masiirkeeda waxaysan raalli ka ahayn uma soo qaadi karto oo waxyaalaha aynu kala qaybsannahay in laga wada dhex muuqda waa muhiim golayaasheena iyo xisbiyadeena iyagana lafaantoodu inay ka muuqdaan meesha waa muhiim sababtoo ah waxa aad badsataa waxba kaa xumayn maayaan waxay ku qurxinayaan doodii ku hagaajinayaan iyo meeshii kaa dabci lahayd iyo qoladii lagu tuuri lahaa waxaa loo dhan yahay inuu ka shaqeeyo taladayda aniga waxaan aaminsanahay runtii in badan baa laga dhawaajiyay wadahadalka runtii xukuumaddu way furto waa tii dastuurka dib loogu noqday xeerkii la eegay dhowr qodob baan ka hadlaya 3 qodob mid waa ka dastuurka diman baan ka dhawaajiyay dastuurka waxaan rabaa in timekeenu wadaaya balse inaynu taladeennii ku noqono maanta sidan ay u dhacday mustaqbalka maxaynu doonaynaa mustaqbalka waxaynu doonaynaa in aynu legal channelkii ee jiray ay markii hore xukuumadda dastuurka u taabatay ee loo fasaxay inay xukuumaddu la hadasho xukuumadda Soomaaliya dibadeetna uu socdo kii ayaan aan ku talinaya qodob kalena waxaan ku daraya Soomaalilandnimadu waxa weeye in aynu u hogaansano mar walba hogaanka jira iyo nidaamka jira oo aynu uga dambayno iyo ka mandate u haysta wada hadallada iyo nidaamka maaha inaynu walba intuu carruurayda fadhi ku durul baan galaya waan ka dhaadhicinaya haddaynu u noqono xaqiiqada in cigaalana haysto wuxuu yiri dadka Soomaaliya jooga guri madaxdooda iyo siyaasiyiintu dhamaantood waxay u haystaan inay Somaliland dadka iyo dhulkaba leeyihiin nimanka haddaynu wax kasta nidhaa si walba ula hadallo si walba ula dhicino fadhi ku dirina waynu aragnay meel walbana waynu aragnay kama dhaadhicin karno haddaba waxa qura inoo bannaan waa inaynu legalkii dariiqii aynu marnaa marka ay gaadhaan ay u bislaadaan dadkaasina waxa weeye in loo xulo sida la sheegayo ay soo sheegeen qaar badan in guddiyada la sameeyo oo dhinac walba ka kooban oo isku dhafa oo xisbiyada ka kooban oo baarlamaanka goboleedyada ka kooban aqoonyahan walba leh soo aad garanaysid barnaamijka dadka joogana marka la dhiirigeliyo inay la hadli karaan la debate kareen karaan debate-ka la sameeyo waa in la isdhageystaa marka la eego laakiin yaanay nagu dhicin mar dambe aftuubkii nagu dhacay iyo sidii dhacday yaanay dhicin aad baad mahadsantahay maxamed mooge taladaada ku aadan iyo mustaqbalka soo socda ninkii daacada iyo ninkii daacaddarrada marka wadaalada rasmiga la isugu yimaado horta la arki doono waa qodobkaas qodobka kale waxa weeye dadka inagu aynu dooranay in matali waa inaan ku kalsoonaana waayo Somaliland oo dhan ma wada hadli karto waxaan ku darayaa oo ku soo gabagabeynay hadalkaygu wada hadalladu ha socdaan cuntaduna haddaanay milix lahayn dhadhan ma lehe milixdaa lagu daro أنا واحد مرة لها يعني إناني واحد كسر هذي اللي هذا الدون كواحد كسر هذي اللي إناني reeraha si aqoon isku siinay ilaahay fresh kala keenay adiyada in dhex ka shimoyaan taasoo kusoo marka yeena laba hadii aad baan wasaxay walaashii horta qofku haduuba kolba yiraahdo hal lagu soo casuumay xitaa jaamacadda Hargeysa deenaga dhammaan Soomaaliland taan iska tagnaa muxuu ka soo doonayaa dalka Soomaaliland in aan ku ixtiraamsanayn waayo u imanaysaa heritage Soomaaliland dhexdeeda madaxweynihii soo casuubin uu khaldana dadkii ku kula sheekaystana uu khaldana bulxanna uu khaldan yahay hadduu professor yahay uu study waliba psychology uu yahay filaya sida tacliintiisa ku arkay uu og yahay psychology-ga reer Soomaaliya sidoo uu soo casuumi karaa Soomaaliland dhexdeeda waa talabaad taas waa kii koobaad talabaad shacbiga reer Soomaaliland dawladda Soomaaliland sidoo yiri maxamed dadkoo dhan ma wada kaxayn karto Somaliland horta dadka reer Somaliland language-kooda ay ku hadlayaan waa inay bedelaan shanta Soomaaliyeed la sheegay wax jira la yiraahdo ma jirto anoo kelmadda Djibouti ku dareen oo dhaxalkaygu yahay oo aan jeclayn inaan taabsado wallahi aan jeclayn inaan taabsado laakiin waa la ogyahay Djibouti Republic of Djibouti weeyaa ma aha Republic of Somalia ma waa Republic of Djibouti weeyaa marka waxaan sidqsanahay reer Somaliland dawladeeda
iyo muxaafid iyo mucaaribba horta ha fahmaan languageka somaliland inay barato politicalka ah soomaaliyeed ha ka saaraan vocabulary let me finish kelmadda saddexaad aan ka faa'iidaystay kelmadda soomaaliyeed ha ka saaraan vocabulary-ga mahmaah soomaaliyeed ha ka saaraan vocabulary-ga fanaan soomaaliyeed ha ka saaraan vocabulary somaliland ha isticmaalaan that time ayaa ilmihiinu wax idiin noqonaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتن آد بعد ما سنتين أنا أقول هذا مقعد SSUK هذا قرح بدنا شركة قيم كشين ضدنا بالمرة سمايو runtii wax badan ka xataas badan oo soo wadnaa way iman doontaa haddaan dib ugu noqdo inkastoo soo wada hadasheen ma sha Allah si qurux badan wada hadasheen nin walba fikirkiisu hadlay laakiin anigu fikirkayga aan markaan reer Soomaaliland aan leeyahay marka meelaha soo kale rabo in la tago waxa fiican in la isku duubnaado iyadoo maaragtay team la wada yahay la tago oo marka wax la isku ogyahay laga hadlo waxaa jira xisbiyo leenahay shacab baynu leenahay xisbiyadan laftigeeda marka hadii doodaha noocaas oo kale maaha inuu aduu qofku khaldamo oo midna kale aan ku hadlay farsamo magaca xisbiyada mid kamid ah oo halka aan tago ina xisbi ahaan ma ku taageersanahay waxaan aan ka xisbi ahaan miyaan ku taageersanahay mise kuma taageersanin hadduu meel xisbigu kaga dhacaya meel xisbi ahaan meel buu kaga dhacaya dowladda meel buu kaga dhacaya marka waxa fiican inagoo tiima inaynu markaan meel tegno oo magaca Somaliland ku hadlana oo Soomaalinimada naga dhabtay oo calanku inaga dhab yahay inaynu u tagno maxaa meelaha qaarkood ee naga soo casuumo meelaha aan naga soo casuumina markay noqoto Somaliland kala laga hor keenay aqoonta aniga laga hor keenay aynaaba shaltan Somaliland ka duday maanta doonaya shilin ka raacayna shilin buu doonta qofkaas maanta Somaliland ciidiisu dahab ku jirta intuu ka tago oo badii la wax walba inagu haysan intuu ka tago ninka halkaan waxa martay waxa ka shilin doonta habad doonta uu shaqo tagay waxa shaqadiisu kuma haysano laakiin muhiimadu waxa weeye in aan mid anigoo kale maanta Somaliland wali taagan ciideedii ka dhaqaaqin in aniga laga ka horkana shalay bal cartay taan waan ka soo horjeeda taladeena iyo mustaqbalka teena mustaqbalka markasta waxa weyn reer Somaliland iyo maamulka kolba hogaaminaya madaxweyne dowladda imika gacanta ku haysa dadka tabashadooda inay eegto dadka waxay tabanayaan inay eegto in dadka hoos u eegto weyn dowladda maanta gacanta wax ku haysa kuwa xanaaqaya ama xisbi ahaadaan ama shacab ahaadaan waxay ka xanaaqeen in dowladdu raadiso weeyaan dowladdu ma hadaf marka wax xanaaqaan aan hoos ku eego dowladdu marka xanaaqdo ma aha maxaan ku shacabku marka xanaaqaan ma xisbigu marka xanaaqo ma aha in maxaan ku dowladduna ay break dib u gashato tirada ana power leh taasna waa laga qurux badan yahay marka dowladda Soomaaliland waxyaabo badan anigoo aan runtii saddex xisbi midna aanu hadlahayn magaca Somaliland ku hadlaya waxa inay hoos u eegto maamulka ay gacanta ku hayso cabashada badan ee ka soo yeeraysa inay maxaan ku rahaa ogaanku waxa weeye sida inamadina horeba ka dhawaajiyeen awrka marka qofku wado qofku hogaaminayo bal daba socda liidarka fiican in ba dhaliya dowladnimo marka Somaliland waxyaabaha la ku canaanay inuu ka baxa anoo qurban iska joognaa ميكروفون الناس قبسم منه كاميرا الناس قبسم منه إننا عنا ما ينه لكن وحلو بهي هم حاضر